السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي أن جعلها أيجن هالكيك وحنا آد بعدين سلام ولاشين سعدين عند الله سبحانه وتعالى وناكسن مالي وناكسن وقت والبودين تو وناكسن وحن آدي وما هاد علنا أصحاب تعصبين وصبيرة سبحان الله يسود وهذا آد بعدين جعلنا هاي كوي هرن ولا جوجن وحن لا هاي وإذن كم هاد علنا الناس إذا وناكسن آد مرول بنو بحرنتهين هذا نوع عصب تهينا فيديو داود الناس بليز سبسكرايب نوصار كم بلال كنا فرصة أو نقطة داود هنا كوات هديات فيديو كيشنا نولا يقرأ إن شاء الله ما أنتو حاربا إنان كهالله بيوتيga sida aan hore biyutiga uga hadli jirnay ee janalkayga aad uga barateen asxaabta biyutiga zaid ay u badan yihiin soo sidaa daraadeed waxaan jeclaaday in biyutiga janalkayga uu soo badiyo waqti hore tan waan sameyn jiray laakiin xoogaa maalmahan mashquulkayga iska batay maanta waxaan rabaa inaan maxal dhigi jiray idinkaga sheekeeyo creamkan waxaa la dhahaa 7 herbal cream la dhahaa soo 7 herbal creamkan waxaa loogu talagalay kareemada saan ahna hore idinkugu soo sheegay Pakistan laga keenaa badankooda so creamkan waxaa loogu talagalay all types oo skinka ah dadka dhan oo skinka loogu talagalay xataa sun cream ku jiro oo hadii wajiga aad marsatay qoraxda ka celinayo so creamkan waxaa laga sameeyay waxyaalo herbal oo mostly in India laga keenay Pakistan ko waxaa kamid ah waxaa laga sameeyay creamkan huruud waxaa laga sameeyay yogurt waxaa laga sameeyay maxaa la jiray qamadi ama misirta yolowga shiidan hada garanaysiin laga sameeyay waxaa kale oo laga sameeyay lindanaan waxaa laga sameeyay magaciisa ii sheeg waxaa la yiraahdaa malab so wax meeshan iskugu jiro dhan arkaysin waa herbal wax chemical haba yaraatee ma ku jirto waxaana loogu talagalay dadka oo skinka ah dadka dhan oo skinka dhan loogu isticmaali karaa qof kasto uu isticmaali karaa so creamka uu egyahay hada idin tuso creamka saan uu egyahay waan originalki waaye dukaanka soo qaadaysa arkaysiinba creamada mostly India iyo Pakistan laga keenaa creamkan mix formula waaye saasay tahay maxaa la jiray waxaa loogu talagalay dadka oo skin type ka dhan isticmaali karaan qof qaleel isticmaali karo qof oo saliid la isticmaali karo qof maxaa la jiray oo waxa isticmaali karo oo maxaa la jiray dry zaid qof normal dhexdhexaad qof wajiga finan ku leh qof oo maxaa la jiray also dadka qaarkood ee dhibto huruuda dad huruud dhibta jirto soo dadka huruuda dhibtada ku jirtid waxa waaye maybe sensitive ku tahay laakiin all types of skin lagu soo qoray meesha oo si laga arkayo at the same time waxa waaye herbal waaye wax chemical haba yaraatee oo ku jirta malahan soo markaa sidee loo isticmaalaa meesha taalo hadii aad rabtid inaad kaligiis isticmaashid oo maxaa la jiray aad cream ku darsanin waa isticmaali kartaa kaligiis oo wajiga shining qurux badan glowing whiten oo normal ku siina laakiin hadaa rabtid inaad zaid isku cadeysid ama wajigaaga zaid oo haraka qabtid oo aad haya gabar caroosad aad tahay ama xalfad ama waxaas aad daneynaysid inaad aadid oo maxaa la jiray aad rabtid inaad isticmaashid waxaa sameyn kartaa creaman kala ku darsan kartaa sida antimax ku darsan kartaa waxaa ku darsan kartaa qaalibta ku darsan kartaa qaalibta laba nooc mid waxa jirto oo maroon iyo mid waxa jirto green soo mid aragtida ku darsan kartaa waxaa ku soo hartay doorna Turkiga ku darsan kartaa waxyaalo badan ku darsan kartaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad isticmaashid oo maxaa la jiray aad wajigaaga ku qurux badnaado horta kareeman waxaa jira wajiga marka la marsado wajiga dhan qolof ku noqonayo it means inuu wajigaaga oo sensitive leeyahay oo creamkaas uu ku dhibaayo waa inaad iska dhaafta laakiin wajigaaga oo plain hadaa aragtid wajiga waxaa laga yaabaa inuu ku creamkii uu ku anfacay oo wajigana oo si fiican uu u qaatay laakiin wajigaaga hadii qolof ku aragtid please iska dhaaf ama aad gudguduud ama waxyaalo badan aad ku aragtid wajigaaga inaad iska dhaaftid ku haboon oo sidaas kula wanaagsan and at the same time hadii aad tahay qof oo dark spots qabo ama maxaa la dandruffska meelahan dark spots waxaan ka wadaa ama maxaa la jiray dandruff iga soo fakato sorry guys and dark spots ama dark circles aan ka waday dark circles ka qaba hadaa tahay zaid ku anfacaya because herbal laga sameeyay timirta iyo maxaa la jiray iyo huruuda markii la isku daro waa ogtihiin oo wajiga la marsado waxyaalaha huruuda la mostly wajiga madmadowga bay ka baabiyaan soo marka hadii aad madmadow waada wajigaada oo la rabin madmadow hadda uu leeyahay waxa uu ka caawin doona si fiican uu kaaga caawinaya creamkan soo marka insha Allah waxaan rajeynaa waqti walba oo u baahatay 7 herbal cream ala creamkan
ama maxaa dhihi jira kariimo kale ta u baahatid dukaanka waa ka heli kartaa mar walbana waa idin sheegaa dukaanka qofka u baahan alaab inuu ka gato waliba alaab original ah rabo waa la soo dhaweynayaa sida mar walba idin sheegabo midda kale at the same time haddii aad kariimo saan u baahatiin waa helaysiin laba dukaan waa dukaanka haddaa saliidaha haabul ah ama waxyaalaha haabul oo dhan aa u baahatiin oo soo boomaatooyinkaba ee haabul ay qabaan sida tan oo kaleeto waa helaysiin laakiin haddaa u baahan tahay cream caadi oo white oo jirka lagu dhaqdo waa helaysaa dukaanka haddii aad rabtid waxyaalaha haabul inaad gadatidna sidoo kale baa helaysaa dukaanka meel dheer markuu kala yaala midna hoos uu ku yaalaa midna kor uu ku yaalaa soo marka midkan oo kariimada lagu gadaayo hoos uu ku yaalaa alxaq plus hoos markaa soo gashid fasti oo jaranjarada intaada korin uu kasoo horjeedaabo laba waaye laakiin jaranjarada midda suko oo meesha xalabada iyo waxaas lagu gagado waaye kaasaa ka helaysa cali aa la dhahaa wiilka haddii aad u baahatiin gabdho badan ay soo weydiinaya haddii kalena waxaa waaye waa isoo bici kartiin anaa isoo bici kartiin nambarkayga meesha ka helaysiin soo saa dukaanka idinkugu xiriiri soo marka kariimada markastoo aad u baahatiin ama mid original aa u baahatiin please sida dhaqsiyaha badan haddaa ila soo xiriirtiin insha allah dukaanka idinku xirooya ama mostly anaaba dukaanka joogaba anaa suuqa joogo soo marka insha allah waxaa aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad iga soo codsataan kareemada ay dhahdeen sacdi kareemkaas rabnaa soo geli anigana mar walba waxaa ku dadaalaya inaan kareemka soo geli sida ugu dhaqsiyaha badan aad iyo aadaan idin jecelahay waana mahadsantihiin meel walba aad joogtiin waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu